okay hadalkan markaan dhaho dad badan way ila yaabi doonaan ma ogtahay waxaa jirto cilmi baaristaas waxay sheegaysaa ninka ragga ah jaadka markuu isticmaalayay ama qayilayay waqti dheer inay saameyn ku yeelanayso shahwadiisa ragga qaar cunista jaadka waxay ka qaadaan inay noqdaan madhale ma ogtahay cunista jaadka waxay saameyn ku yeelanaysaa raganimadaada si toos ah iyo si dadban sababtoo ah jaadka markaa cuntid waxaa hoos u dhacayo levelka testosteronkaaga ma ogtahay cunista jaadka waxay kuu keeni kartaa inaad waalatid ragga qaar waqti dheer markay jaadka isticmaalayeen waxaa ku dhacdo xanuunkan ay dhahaan schizophrenia waa ogahay hadaladan dadka qaar inay liqaan way ku adkaanaysaa sababtoo ah dhaqanka Soomaaliga ah jaadka uma aqoonsana inuu yahay daroogo firi dhaqan walba waxa uu leeyahay waxaanay dhahaan dhaqan daroogo dhaqanada qaar waxa caadi ah qofka inuu khamro cabo dadkaas oo kale markaa dhahdid khamrada waa daroogo way kula yaabayaan sababtoo dhaqankooda ayaa aqbalsan kama dhadhacsana khamrada inay tahay daroogo dhaqanada qaar cabista xashiishka normal ayuu ka yahay dadkaas dhaqankooda uu qabo cabista xashiishka haddii aad dhahdid xashiishada waa daroogo iyagana way kula yaabayaan dhaqanka Soomaaliga marka ay timaado jaadka uma aqoonsana inuu yahay daroogo sababtoo dhaqanka ayaa aqbalsan taasa waxay keenaysaa qofka Soomaaliga ah inay ku adkaato inuu aqbalo jaadka inuu yahay daroogo marka hadda su'aasha ugu horeyso oo isweydiiska mudan waxay tahay cunista jaadka saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa ninka ragga ah shahwadiisa firi waxaa jirto cilmi baaristan waxaa ka qayb galay 32 dooli oo rag ah 32daas dooli waxaa loo kala qaybiyay 4 group walba meel gooni ah ayaa la geeyay groupka koobaad wax jaad ah oo la siiyay ma jirin oo si normal ah ayay u noolaayeen groupka labaad waxaa la siiyay mid kasta oo kamid ah 100 mg oo qaad ah per kilogram groupka saddexaad waxaa la siiyay mid kasta oo kamid ah 200 oo miligram oo jaad ah per kilogram groupka afraadna waxaa la siiyay mid kasta oo kamid ah 300 oo miligram oo jaad ah per kilogram cilmi baaristan waxay socotay 8 week 8daas week cilmi baarista ay socotay jir walba ama group walba waxay helayeen jaad intii loogu talagalay cilmi baarista markay dhamaatay waxaa la baaray markii ugu horeysay groupkii koobaad groupka koobaad jaad lama siinin si normal ah ayay u noolaayeen groupkaas markii dhiigag laga qaaday wax walba sidii loogu talagalay ayay ahaayeen wax isbedel ah ma lagu arag hormoneskooda wax isbedel ah ma lagu arag xiniyahooda markaas kadib waxaa baaris lagu suubiyay 3 group ee soo haray 3 group markii dhiigag laga qaaday waxaa la arkay isbedel aan fiicneen oo ku yimaaday hormoneska waxaa kaloo la arkay isbedel aan fiicneen oo ku yimaaday xiniyaha dhiigagii laga qaaday waxaa la arkay inuu hoos u dhacsan yahay LH FSH prolactin iyo testosterone waxaa kaloo la arkay isbedel inuu ku yimaaday tissue-ga uu ka subsan yahay xiniyahooda waxaa kaloo la arkay protamine 1 asigana inuu hoos u dhacay groupkaas groupka uu ka helayay maalintii jaad badan xaaladiisa way ka sii xumeed waxaa ugu darnaa groupka afraad sababtoo groupka afraad mid kasta oo kamid ah maalintii wuxuu helayay 300 oo miligram oo qaad ah per kilogram groupkaas shahwadooda aad ayay u liidatay groupkaas shahwadooda waxaa lagu tilmaamay inay ku dhaweyd madhale nimo marka cilmi baaristan macnaheeda ma ahan qof kaste oo jaad cuno inuu noqonayo madhale aniga kula hadlaayo waxaan aqaanaa dad badan oo jaad cuno isla markaasna ilaahay uu siiyay ilmo badan cilmi baaristan macnaheeda waxa ay tahay jaadka marka waqti dheer isticmaalaysay wuxuu saameyn ku yeelanaa shahwadaada ragga qaarna waxaa macquul ah inuu u keeno inay noqdaan raggaas madhale marka adiga videoga fiirsanayo haddaa gabar tahay isla markaasna adiga ninkaaga isku dayeyseen inaad uur yeelatid isla markaasna ee idiin suurtagali weysay waxaa laga yaabaa problemka adiga inaadan ahayn bal ninkaaga hadduu yahay nin jaad cuno waxaa dhahdaa bal isa soo baar waxaa laga yaabaa problemka dhankiisa inuu ka socdo marka hadda su'aasha kale oo isweydiiska mudan waxay tahay jaadka markaa cuntid maxaa keenayo levelka testosteronkaaga inuu hoos u dhaco firi maskaxdaada waxaa ku yaalo system ay dhahaan
HPG. Systemkan wuxuu kontroolaa testosteronka uu jirkaaga soo saaro. Sababtoo fariinta maskaxda ay ka baxaysaa, xiniyahay aadaysaa, xiniyahana markaas wuxuu soo saaraa testosteronka markaas loo baahan yahay. Jaadka markaa cuntid wuxuu kicinaa ama saaid u kicinaa maskaxdaada. Maskaxdaada markay saaid u kacdo waxay saameyn ku yeelanaysaa HPG axis-ka. HPG axis-ka shaqadii loogu talagalay markuu qaban waayo maxaa imaanayo? Fariintii xiniyaha ma gaarayso. xiniyihii shaqadiisa ma qabsanayo. xiniyaha markuu shaqada qabsan waayana maxaa imaanayo? Jirka testosteronkii uu u baahnaa ma helayo. Meeshaasna waxaa ka imaanayo levelka testosteronkaaga inuu hoos u dhaco. Jaadka waxaa ku jiro maada ay dhahaan cathinone. Cathinone waa stimulate aad u xoog badan. Waxay la mid tahay sida amphetamine-ka oo kale. Jaadka markaa cuntid ama maadadan jirkaaga markay soo gasho waxaa saaid active u noqonayo nervous systemkaaga. Nervous systemkaaga markuu saaid active u noqdo jirka action ayuu diyaar u yahay. Arrintaa laakiin jirka wuu ku wareeraa. Mararka qaar jirka wuxuu u maleynaa wax xun inay dhici rabaan oo dagaal ayuu isku diyaarinaa. Taas waxay keenaysaa jirka inuu soo deeyo cortisol badan. Cortisolkaagana markii xadkii loogu talagalay dhaafo, testosteronkaaga hoos u dhaca. Taasna waxay keenaysaa jirka inuu heli waayo testosteronkii uu u baahnaa. Cunista qaadka waxay kale kuu keenaysaa inay kugu dhacdo nafaqa darro. Sababtoo qaadka appetite-ka ayuu kaa xiraa. nafaqa darro markay kugu dhacdo waa caafimaad darro. Intaas waxaa kuu sii dheer waxay saameyn ku yeelanaysaa raganimadaada. Sababtoo jirkaaga markuusan helin dufanka uu baahan yahay, markaas waxaa ku adkaanayso inuu suubiyo testosteronka uu jirka u baahan yahay. Tusaale kale, jirkaaga hadduusan helin vitaminiska iyo mineralska sida zinki iyo vitamin D oo kale, markaas jirka waxaa ku adkaanayso inuu soo saaro testosteronka uu jirka u baahan yahay. Marka nafaqa darro markay kugu dhacdo, caafimaad darro bes ma ahan, waxay kale saameyn ku yeelanaysaa raganimadaada. Sababtoo waxaa hoos u dhacayo markay nafaqa darro kugu dhacdo levelka testosteronkaaga. Dad badan markaa fiirisid oo jaad cuno miisaankooda 45 kiilo 50 kiilo waay. wejigooda, ilkahooda, caafimaad darrada, nafaqa darrada ka muuqato markaa fiirisid waa yaabaysaa. Raggaas duruuf saas ma ka dhigin, laakiin addiction ama daroogo ayaa saas ka dhigay. Jaadka lacagtaada ku ciyaaraa, caafimaadka uu ku ciyaaraa, raganimadaadana wuu ku ciyaaraa. Saameynta uu jaadka leeyahay waxaa kaloo ka mid ah dhafarka, hurdo la'aanta. Qof habeenkii dhan qayilaayo dee ma seexanayo. Qofka marka uusan seexan ama habeenkii helin hurdo ku filanna maxaa imaanayso? Waxaa imaanayso low testosterone. Bal adiga fiidowga fiirsanayo waxaa suubisaa 7 habeen oo isku xigto dhafar, markaas kadib dhiig iska qaad ee fiiri levelka testosteronkaaga meesha uu marayo. Balan waa jawaabta marka lagu soo diro habeen kale bilaa macno ma ku dhafraysid. Marka hadda su'aasha kale oo isweydiiska mudan waxay tahay cunista jaadka ma lagu waashaa? Jawaabtu waxay tahay haa, dadka qaar way ku waashaan. Dadka qaarna waxay ka qaadaan xanuunkan waalida ah oo Soomaali badan ay qabto oo magaciisa la dhaho schizophrenia. Firi saaro soo sheegnay waxaan dhahnay qaadka waxaa ku jirto maada ay dhahaan cathinone oo la mid ah sida amphetamine-ka oo kale. Maadadan qofka jirkiisa markay soo gasho ama qofka markuu qaadka cuno uu marqaamo, waxyaabaha lagu arko waxaa ka mid ah paranoia, shaki badan. Qofka wuxuu u maleynaa dad asiga ka fog oo howlahooda iska haysto asiga inay ku soo socdaan oo waxyeeli rabaan. Waxyaabaha kale lagu arko waxaa ka mid ah qofka uu arko ama maqlo waxaana jirin. Mararka qaar qofka markuu marqaamo wuxuu maqlaa codad dadka kale aysan maqlaynin. Dadka qaar markay marqaamaan waxay noqdaan dad aad u gardarro badan. Dadka qaar markay marqaamaan waxay noqdaan dad delusional ah. Hadalkooda, go'aanadooda waa kuwa xaqiiqada aad uga fog. Marka calaamadahaas aan kuu soo sheegay waa calaamadaha lagu arko qofka qabo schizophrenia. Schizophrenia waa nooc ka mid ah waalida. Badanaa waxaa laga dhaxlaa waalidka. Waxaa laga yaabaa hooyada ama aabbaha inuu qabi jiray oo adigana markaas uu kugu dhaco. Mararka qaar waxaa laga yaabaa awowga ama awowgiis xataa inuu qabi jiray. Laakiin jaadku wuxuu keenaa arrintan wuu soo dedejinaa. Waxaa laga yaabaa awowga ama awowgiis inuu schizophrenia qabi jiray oo familkaaga historigooda uu ku jiro. Marka jaad cuntid ama daroogo kale isticmaashid maxaa imaanayo? Arrintaas way soo degdegaysaa. Waxaa laga yaabi lahaa haddii aadan jaad cuni lahayn ama daroogo kale aadan isticmaal lahayn arrintan inaad ka badbaadi lahayd. Badanaa dadku family historigooda ku jiro wuu ku soo dedegaa markay bilaabaan wax maandooriye ah inay isticmaalaan. Marka arrintan
soomaalida jaadka iyo schizophrenia ku saabsan hadaa rabtid wax badan inaad ka ogaatid waxaa jiro boqolaal case oo laga qoray Google hadaa ku qortid waad arkaysaa. Marka asxaabta video inta ka bixin waxaan rabaa inaan idin sheego saarkaysiin gadaasheeda waxaa ka muuqdo supplements badan oo kala duwan. Adiga video-ga fiirsanayo hadaa protein u baahan tahay, creatine u baahan tahay, pre-workout u baahan tahay, wax walba oo supplement aad u baahan tahay waan haynaa. waxaa ka soo dalban kartaa website-keena. hadaa Europe joogtid si sahlan ayaa gurigaaga lagugu keenaa. anaga waxaan haynaa bes alaabta ugu fiican, shirkadaha suuqa ugu fiican alaabta ay soo saaraan bes ayaan gadnaa. marka hadday jiraan waxaad u baahan tahay website-keena ka soo dalbo. hadaa Europe joogtid si sahlan ayaa gurigaaga lagugu keenaa. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videogan aad daawateen. ha iloobina videogan like na saartaan, comment ka soo bixisiin, asxaabtiina u share gareysaan. hadaa wali subscribe yihiinna fadlan subscribe dheh. mahadsanidin. waxaan noo ballanay videogan videoga ku xigo. ballanteenu waa caafimaad iyo muruq.